hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ayaa maanta qoysaskii ugu badnaa oo Soomaali ah ka qaaday dalka Koonfur Afrika kadib markii ay dib u dejin ka heleen dowladda Mareykanka. Warbixinta warkan magaalada Cape Town waxaa ka soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Maxamed. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano UNHCR ayaa maanta garoonka dayuuradaha ee magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ka dhoofisay in ka badan 20 qoys oo Soomaali ah kuwaasi oo ku sii jeeda waddanka Mareykanka. dadkani nasiibka u yeeshay in cagahooda ay ka qaadaan ciidda waddankani Koonfur Afrika oo inta badan ay dhibaatooyin kala kulmaan. dadka Soomaaliyeed ayaa waxa ay isugu jireen dhalinyaro, haween iyo weliba qoysas wata carruur ku dhalatay dalkani Koonfur Afrika. TV-ga Universal oo kaamiradiisu ay gaartay Cape Town International Airport ayaa dadkii la hadlay waxa ay ka warbixiyeen dareenkooda ku aadan safarkaasi. والله وحال يراهدا عرب شيخ علي شيخ إبراهيم والله الحمد لله يعني درeenkaygu maanta waa xad moodaa xawlaha in ay iska yara jirto sababtoo anigoo joogay waddanka in badan muddo dhan 18 sano marka waxaan filayaa kale ilaahay aan ka filayo wanaag. magacaygu waxaa la dhahaa Xasan Daahir Ibrahim waxaan halkan u imaaday in aan ka dhoofo garoonka Cape Town Airport International waxaan u dhoofayaa waddanka Mareykanka gobolka la dhawaado Arizona waxaan dhoofinayo hay'adda la dhaho UNHCR waxaa keenay in aan dhibaatooyin fara badan kala kulno waddankan South Africa oo aan lahayn nabadgelyo la'aan saa darteed ayaan uga dhoofinaa waddanka. ما شاء الله waa iska caadi oo mar walba dadka qaxootiga in la qaado oo yani dejin loo sameeyo marka aniga dadkaas ka mid ah kullay qof kasta oo Soomaali waa fahmi karaa meesha ammaan kuma haysano haddaan nahay Soomaali dadka dukaamada lagu gubaa waa la dhacaa waa nala dilaa dhibaato badan waddankan ma qabsatay marka insha Allah kuwa dambe oo joogan waxa uu rajaynayaa in wixii oo rabo in iyagana sidaas oo kale loo qaado ama waddankooda ay ku noqdaan. waa dadkii ugu badnaa oo Soomaali ah oo markii ugu horeysay hay-adda adduunka u qaabilsan qaxootiga ay ka qaado dalkani Koonfur Afrika. Xasan Kaafi Maxamed Shire, telefishinka caalamiga Universal, magaalada Cape Town.